kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybta 463 ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. waad mahadsantahay Faysa. maantana waxaan barnaamijka uga hadlaynaa sugnaanta cuntada Soomaaliya annagoo diiradda saarayna xalalka muddada dheer sida beerashada waarta iyo dhaqamada waxbeerashada ee u adkeysan kara isbeddelka cimilada iyo xoojinta nidaamyada cuntada maxalliga ah. Soomaaliya waxay wajahaysaa sugnaan la'aan cunto oo baan, taasoo sabab ay u yihiin sanado badan oo isugu jira colaado iyo mashaqooyin bini'aadanimo. Waxaa sidoo kale dhibaato xooggan gaarsiiyey wax soo saarka beeraha, abaaro iyo fatahaado, kuwaasoo sidoo kalena saameyn xun ku yeeshay hab nololeedka guud ee dadka. taasi waa xaqiiq xanuun badan oo hadda taagan, waxayna saameyn ballaaran ku yeelatay xaaladda amniga cuntada Soomaaliya. sida ay sheegayso hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay FAO, 4.4 milyan oo ruux oo Soomaaliya ayaa wajahaya sugnaan la'aan cunto ilaa iyo dhammaadka sanadka 2025. Kuwani waa tirooyin naxdin leh. Si loo yareeyo saameynta ba'an ee xaaladdan, waxaa loo baahan yahay maalgelin gacan ka geysan karta bixinta gargaarka cuntada iyo biyo nadiif ah oo la gaarsiiyo malaayiin Soomaali ah. Intaasi waxaa dheer, xogta Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Soomaaliya waxay sheegaysaa in dhinaca beeruhu ay 70% ka yihiin wax soo saarka guud ee gudaha dalka. Taasina waa qayb muhiim ah. aad iyo aad intaasi waxaa dheer maalgelinta beerashada u adkeysan karta isbeddelka cimilada iyo maaraynta xoolo dhaqashada waarta waxay bulshooyinka ka caawin doonaan inay u adkaysato dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo fatahaadaha. Sidoo kale ilaalinta bulshooyinka nugul waa inay noqotaa xudunta howlaha waxqabadka ah iyadoo loo marayo dadaalada bini'aadanimada iyo kuwa horumarinta oo agaasiman. aad iyo aad ka qaybgalka bulshada ee ka jawaabista baahiyaha iyaduna waa muhiim. bulshada maxalliga ah waxay leedahay faham wanaagsan oo ay ka haysato xaaladda deegaanada, baahiyaha jira iyo xalalka shaqayn kara. waxay aqoonsan karaan qoysaska nugul ee kaalmada u baahan, iyagoo sidoo kalena gacan ka geysan kara dabagalka hanaanka qaybinta cuntada si loo xaqiijiyo inay gaarto kuwa baahida ugu badan u qaba. Taasi waa sax. Cabdi Casiis, tani waa sababta ay qaramada midoobay iyadoo la shaqeynaysa hay-adaheeda kala duwan sida FAO u taageeraysa Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Soomaaliya, iyadoo siisa taageero farsamo oo lagu hagaajinayo waraabka, lagu taageerayo caafimaadka xoolaha, korna loogu qaadayo hannaan waxbeerasho oo u adkeysan kara isbeddelka cimilada, xoojina kara nolosha dadka reer miyiga ah. Haddaba dhegeystayaal, si aan arrintani wax badan ugu ogaano, waxaa istuudiyaha nagula sugan Maxamuud Yaasiin Cartan, agaasimaha sugnaanta cuntada Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Soomaaliya, iyo Izana Kasa, madaxa barnaamijyada hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO. Mudane Cartan, haddii aan adiga kugu bilaabo, waa sidee sugnaanta cuntada Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay saameeyeen colaadaha, barakaca iyo isbeddelka cimilada, sideese wasaaraddu uga jawaabaysaa arrintaasi? waxaa sanadkan oo 2025 waxaan sameynay ka wasaarad ahaan annagoo kaashanayna daneeyaasha kala duwan beeraha iyo maxaan ku rahdaa sugnaanta cuntada. maxaan ku rahdaa laba assessment ama qiimeyn oo lagu sameeyey labada xilli roobaad maxaan ku rahdaa dalka Soomaaliya uu leeyahay. marka guud ahaan sanadkan ama xilligan weliba xilliga dambe oo guga waxaan dhihi karnaa sugnaanta cuntada dalka guud ahaan markii laga hadlayo wax soo saarka dalka beeraha aad ayuu u fiicnaa. gugan wuxuu ahaa gugi u fiicnaa muddo hadda intii laga soo bilaabo 2018 gugaas ilaa hadda gugi ugu fiicnaa ayuu ahaa. iyadoo arrintaas jidho haddana warbixinada aan diyaarinay iyo xogaha aan diyaarinay waxay sheegayaan in dalka qaybtiis maxaan ku rahday roobku uu maxaan ku rahday uu yacni meelaha qaybtoodna ku fiicnaa meelaha qaybtoodna uu xogaa ku yara liitay, gaar ahaan gobollada waqooyi aad buu u liitay sanadkan xilligan roobaadka dhammaaday, taasoo keentay in maxaan ku rahday ay keento in sugnaanta cuntadu ay aad hoos dhac ugu yimaado. laakiin guud ahaan saan sheegay gugan gug fiican buu ahaa guud ahaan dalka oo dhan. hase yeeshee maxaan ku rahday weli dalka Soomaaliya number aad u badan ayaa waxay ku jiraan abaarihii iyo maxaan ku rahday isbeddelka cimilada lasoo dhaafay. dad ku dhow 3 milyan iyo 400 kun ayaa waxay ku jiraan waqtigan hadda kula hadlayo sugnaan la'aan cunto ku jira. dadkaasoo u badan dadka kasoo barakacay
deegaanaday deganaayeen oo ama ha samayso abaarihii lasoo dhaafay ama ha samayso fatahaado ama colaadaha deegaanada qaybtood ka jira ha sameeyaan. sidee ayay dowladda soomaaliya u kobcinaysaa sugnaanta cuntada iyadoo u maraysa waxbeerashada u adkaysan karta isbeddelka cimilada? maxaysan yihiin noocyada taageero ee aad u diyaariseen beeraaleyda yaryar? maxaan ku rahday aan ka shaqaynaynaa sidii maxaan ku rahday kow horta beeraleyda Soomaaliyeed ay ula qabsan lahaayeen cimilada isbeddelka cimilada oo ay u isticmaalaan farsamooyinka casriga ah ee maxaan ku rahday la saaxiibka ah cimilada. waxaa ka mid a marka farsamooyinkaas oo aan waxa weeye ku dhiirigelinaa beeraleydeena maxaan ku rahday ku tababarnaa in kow dalagyada maxaan ku rahday la saaxiibka cimilada u adkaysta maxaan ku rahday abaaraha iyo biyo yaraanta inay beertaan, taasoo runtii keeni kadha ama sababaysa in maxaan ku rahday wax soo saarka beeruhu ay kor u kacdo kadibna sugnaanta cuntadu ay maxaan ku rahday xoog yeelato. intaas wax dheer maxaan ku rahday inaan ka shaqeyno barnaamij kala duwan oo ku aadan dhinaca maxaan ku rahday maareynta biyaha waraabka, hadday ahaan lahayd maxaan ku rahday biyaha waxa weye waraabka oo webiyada magaranaysaa dhinaca webiyada ama dhinacyada kale oo maxaan ku rahday ilaha kale biyaha laga helo, sidii magaranaysa loo beeqaamin lahaa, sidii loo isticmaala farsamooyin casriya oo maxaan ku rahday wax lagu beerto. ugu dambeyn mana la wadaagi kartaa tusaalayaal muujinaya barnaamijyo ay hormuud ka tahay bulshada ama dowladda oo xoojinaysa helitaanka cuntada, nafaqada iyo horumarinta adkeysiga qaab nololeedka deegaanada miyiga ah? wasaaraddu waxay aan ka howlgallaa ama aan diyaarinay hal abuuryo kala duwan oo wax looga qabanayo wax soo saarka beeraha. laakiin haddaan hal tusaale ku siiyo, waxaa jira barnaamij la yidhaahdo beero oo barwaaqay Soomaaliya. hal abuurkaas waxaa hindisay wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. wasaaradduna hadda waqtigan aan kula hadlayo waxa weye barnaamijkaas waa la dhaqangeliyey. qaabka u dhaqangalayo qaabka aan hadda aan u hirgelinana waxa waaye in aan maxaan ku rahda laga yimaado qaabkii hore ama farsamooyinkii hore oo wax lagu beeran jiray oo ahaa in dadku magaranaysa ama reer guuraa ahaadaan ama beeraley oo in yaro beer wax magaranaysa meel wax kala soo baxay ahaadaan. hadda qaabka aan barnaamijkan aan u hirgelinayn waxa waaye wejiga koowaad baan hadda bilownay oo aan ku bilownay 12 beero oo kala duwan ku yaala magaranaysa dalka, yani gobolada kala duwan dalka, si tijaaba ama magaranaysa wejigii koowaad. hadda marka waxaan diiradda saarnay ama aan magaranaysa ku bilownay 3 deegaan oo kala ah Baydhabo, Afgooyo iyo Balcad ayaan ku bilownay. 12 beeraley ayaan marka barnaamijkan hadda ka faa'iideysanaya. barnaamijkan BBS wuxuu barnaamijyada kale u duwan yahay waxa weeye waxaan xoogga saarnay in aan beeraleyda ku magaranaysa ay sameeyaan aan sameyno beero isku dhaf ah. oo maxaan ka wadnaa isku dhaf? waxaan ka wadnaa beero leh maxaan ku rahday beero ka kooban dalagii la beerayay, xoolihii maxaan ku rahday la tacbanayay, sidoo kale maxaan ku rahday dhammaan ilihii kala duwanaa ee wax soo saar ah kalahaa, in qofku hal meel ama hal goob ama beertiisa inuu magaranaysa uu ku wada samaysan karo, taasoo aan isleenahay inay magaranaysa ay xoogga saari doonto ama ay xoojin doonto sugnaanta cuntada ee beeraleyda. aad iyo aad dhagaystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamuud Yaasiin Cartan, agaasimaha sugnaanta cuntada wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Soomaaliya. wuxuu nagala qaybgalayay barnaamijka Tubta Nabadda. balse iminka dhagaystayaal aan u gudubna wareysi aan la yeelanay Isana Kaasa, madaxa barnaamijyada hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO. Isana, sidee ayay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO wax uga qabanaysaa sugnaan la-aanta cuntada Soomaaliya? maxayse yihiin arrimaha mudnaanta ugu horeysa aad siinaysaan? maalinta cuntada adduunka waxaa sanad kasta loo dabaaldegaa 16 bisha Oktoobar. xuska sanadkan waa mid gaar ah, waa sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay FAO. waxay Soomaaliya ka shaqaynaysay ilaa sanadkii 1970kii, waxayna si rasmi ah xafiiskeeda uga furatay Soomaaliya sanadkii 1980kii. maalinta cuntada adduunka waa waqti la aqoonsado muhiimadda cuntada, beerashada iyo dadka soo saara cuntadaasi. hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay waxay bixisaa gargaar bini'aadanimo oo nafta lagu badbaadinayo, iyadoo sidoo kalena dhidbada u aasaysa xalal waara oo loo helo kuwa ugu nugul Soomaaliya.
FAO waxay aaminsan tahay in badbaadinta nolosha iyo ilaalinta qaabnololeedka ay noqdaan kuwo wada socda, taasoo muhiim u ah Soomaaliya. qaabka waxqabashada FAO wuxuu isugu jiraa nidaamyada bixinta digniinaha hore, falalka diyaargarowga hordhaca ah, jawaab celinta degdega ah, soo kabashada, adkaysiga iyo nidaamyada waxbeerashada ee isbeddelka horseeda. 4.4 milyan oo ruux oo Soomaaliya ayaa la qiyaasayaa inay wajahaan xaalado cunto la'aan ah oo ba'an, taasoo ka dhigan in 4 ruux ee Soomaaliya mid ka mida uu gaajo wajahayo, halka 1.85 milyan oo carruur ah ay wajahayaan nafaqo-darro. xaaladda cunto la'aanta Soomaaliya waxaa sabab u ah abaaro soo noqnoqda sida abaarihii dhacay intii u dhaxaysay 2021-2023 iyo fatahaadihii dhacay 2023, kuwaas oo saameeyey 1.2 milyan oo ruux oo Soomaaliya iyo dhulbeereed gaaraya 1.5 milyan oo hektar. waxaa sidoo kale sababaha ka mid a colaadaha, sicirka cuntada oo sare u kacay iyo cudurrada dilaaca oo iyaguna saameeya wax soo saarka. hadda waxaa la filayaa xaalado abaareed gaar ahaan Somalilan iyo Puntland, iyadoo sidoo kale ay suuragal tahay inay ku faafto koonfurta Soomaaliya maadaama la filayo in roobka dayrtu uu noqdo mid ka hooseeya sidii caadiga ahayd. arrinta hadda mudnaanta leh waa in nafta la badbaadiyo, gaar ahaana miyiga. deegaanada waqooyiga, bahwadaagta bini'aadanimada oo ay ku jirto FAO ayaa ka jawaabaya abaarta. koonfurta markaad eegto, hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay iyo bahwadaagtu waxay u diyaargaroobayaan wax ka qabashada abaaraha suuragalka ah si aysan qoysasku ugu qasbanaan inay guryahooda ka barakacaan. Soomaaliya waxaa hadda ku nool 3.8 milyan oo ruux oo barakacayaal ah. ujeeddadeennuna waa inaan ka hortagno in dad kale ay abaaraha ku barakacaan. waxyaabaha aan doonayna inaan qabanno waxaa ka mid a in lacaga kaasha iyo taageero aan siino qoysaska beeraaleyda ah. waxaan sidoo kale siinaynaa agab ay u adeegsan karaan waxbeerashada. waxaan sidoo kale bulshada ku caawinaynaa waxyaabo kaabaya noloshooda sida abuurka qudaarta, daryeelka xoolaha iyo agabka kalluumaysiga oo la siiyo bulshada xeebaha. sidoo kale waxaa jira taageerada nafaqada, helitaanka biyaha iyo diyaarinta nidaamyada digniinaha hore bixiya. Rural household with cash along farm tools, seeds and livestock care to help them recover and grow. Also livelihood package that include crop and vegetable seeds, fishing gear for coastal communities. maxay yihiin barnaamijyada aad kala shaqaynaysaan dowladda Soomaaliya iyo bahwadaagta kale si xalal waara loogu helo sugnaan la'aanta cuntada Soomaaliya? Thank you. FAO's programmatic work range from the early warning. barnaamijyada hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay waxay saameeyaan dhinacyo badan, laga bilaabo nidaamyada digniinaha hore bixiya, tallaabooyinka diyaargarowga, ka jawaabista xaaladaha degdega ah, soo kabashada, adkaysiga iyo nidaamyada waxbeerashada ee isbeddelka horseeda. FAO waxay la shaqaynaysaa dowladda Soomaaliya ee bahwadaagta caalamiga ah si wax looga bedelo nidaamyada cuntada, iyadoo la adeegsanayo adkaysiga iyo horumarin loo dhan yahay. FAO iyo WFP waxay hadda hirgelinayaan mashruuca nidaamka cuntada, nafaqada iyo isbeddelka Soomaaliya, kaasoo soconaya 2025 ilaa 2027. ujeeddada mashruucani waa dhismaha nidaam ilaalin oo u adkaysan kara isbeddelka cimilada, xoojinta nidaamyada maamulka cuntada, xoojinta iskaashiga qaybaha gaarka loo leeyahay iyo dowladda, iyo awoodsiinta haweenka iyo dhallinyarada. mashruucani wuxuu taageerayaa 28,000 oo ruux, wuxuuna la shaqaynayaa daneeyayaal ka badan 10,000 oo ay ku jiraan shaqaalaha dowladda iyo hogaamiyaasha bulshada. waxaa sidoo kale barnaamijyadeena ka mid a mashruuca Ogbaad oo ah barnaamij beereed la qabsan kara isbeddelka cimilada. mashruucani wuxuu si dhow ula shaqaynayaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka oo ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed. mashruucani wuxuu higsanayaa soo celinta tayada dhulbeereedka, tababarka beeraaleyda iyo dayactirka nidaamyada waraabka. mashruucani wuxuu soconayaa 7 sano, wuxuuna higsanayaa inay ka faa'iidaystaan 2.1 milyan oo ruuxa. sidoo kale waxaa jira mashruuca Jowhar Off-Stream Storage Program. ujeeddada mashruucani waa yaraynta fatahaadaha, hagaajinta helitaanka biyaha iyo wax soo saarka 5 degmo oo ku yaala Shabeellada Dhexe. And boost food production in 5 districts along the Shabelle River. ugu dambeyn, maxaad nooga sheegi kartaa qaar ka mid ah barnaamijyada bulshada ee guulaystay oo ay taageertay FAO si loo hagaajiyo helitaanka cuntada iyo nolosha bulshada, sideese guushaan loo sii xoojin karaa? Community-led initiatives supported by FAO are improving. FAO waxay ka caawinaysaa bulshada ilaalinta noloshooda iyo hagaajinta dakhliga iyadoo loo marayo barnaamij guulaystay oo lagu magacaabo mustaqbalka xoolo-dhaqatanimada. waxaan la soconnaa in nidaamka xoolo-dhaqashada miyiga uu ku jiro halis weyn sababo la xiriira isbeddelka cimilada. ujeeddada ugu muhiimsan waa helitaanka calafka, kaasoo FAO ay fuliso iyadoo la shaqaynaysa bahwadaagta kala duwan. iyadoo barnaamijkani uu guul horseeday, wuxuu barnaamijkani gacan ka geysanayaa wax soo saarka calafka, diyaarinta calafka iyo suuqgeynta calafka xoolaha. deegaanada mashruucani laga hirgelinayo waxaa ka mid a Galmudug, Kismaayo, Puntland iyo Somalilan, wuxuuna gacan ka geysanayaa hagaajinta nolosha bulshooyinka ku nool deegaanada ay abaartu saamaysay. tusaale ahaan, Hibo Maxamuud oo ku nool Somalilan oo ka mid a dadka ka faa'iidaystay mashruucani, hadda waxay ka ganacsataa calafka xoolaha, waxayna ku caawisaa qaybaha kale ee bulshada inay sameeyaan si la mid a siday iyadu samaysay. Xuseen Cali Gurxan wuxuu isaguna hogaamiyaa iskaashato ka kooban 85
oo soo saarta calafka xoolaha waxay ku sugan yihiin Guriceel iyo Dhuusamareeb. Waxaan sidoo kale taageernaa xoolo-dhaqatada Kismaayo si ay u helaan calafka ay u baahan yihiin xoolahoodu, innagoo sidoo kalena taageerna iskaashatooyinka kalluumaysiga ee magaalada Kismaayo. FAO also supports and provides supports to fishing cooperatives in different parts of the country, like in Kismayo, for example, which have increased income and food availability through improved equipment and training. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhagaystayaalkaasina wuxuu ahaa Izana Kasa madaxa barnaamijyada hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO wuxuu marti noogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda. balse iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan hees ka hadlaysa muhiimadda wax soo saarka beeraha oo ay noo qaadayaan qaar ka mid a fanaaniinta Soomaaliyeed. waa hagaag dhegaystayaal aan intaas uga gudubna heestaasi ka hadlaysay muhiimadda wax soo saarka beeraha waxaa ku luqeynaya qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed waxaana ugu dambeysay barnaamijkeennii Tubta Nabadda oo toddobaadkan halkan idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faa'is Cabdi Warsame. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay Facebook ciwaankeenu yahay Tubta Nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.